gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa shir gudoomiyay kulankii caadiga ahaa oo maamulka gobolka Banaadir toddobaadkii mar isugu yimaad jiray kaas oo looga hadlo horumarinta gobolka Banaadir iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyin kala duwan oo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar u hayaan shacabka caasimadda. Kulankani uu shir gudoominaya duqa magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay dhowr ajando oo kala duwan kuwaas oo kala ah horumarinta nadaafadda magaalada Muqdisho, qaadista canshuuraha, isboortiska, xaaladda cudurka COVID-19 ama coronavirus iyo sidoo kale mashaariicda kala duwan ee caasimadda ka socda sidii loo dardargelin lahaa. Sidoo kale shirkani ayaa intuu socday waxaa intiisa badan looga hadlay u diyaargarowga maalmaha xurriyadda ee nagu soo wajahan. Shirkani oo ay xaadir ku ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaasha degmooyinka iyo sidoo kale agaasimayaasha dowladda hoose xamar ayaa lagu magacaabay guddi ka shaqeyn doona xoojinta dardargelinta u diyaargarowga munaasabadda maalmaha xurriyadda ee fooda nagu soo hayso. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa guddigaasi gudoomiye uga dhigay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camri Jiketi si ay u dardargeliyaan kor u qaadista munaasabadaha maalmaha xurriyadda ee 60 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii ay Soomaaliya xurriyadda ka qaadatay gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Sidoo kale shirka intuu socday ayaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas'uuliyiinta agaasimayaasha dowladda hoose xamar waxaa la faray in ay qayb ka noqdaan wacyigelinta bulshada ee kor u qaadista dhinaca bilicda caasimadda iyo sidii guri kasta oo ku yaala magaalada Muqdisho loogu suuri lahaa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya si kor loogu qaado muujinta astaamaha maalmaha xurriyadda oo ku weyn dhammaan muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed. Shirkaasi markuu soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar. shirka toddobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada mudane Cumar Filish toddobaadkan waxaa loogu hadlay oo diiradda lagu saaray u diyaargarowga toddobaadka xurriyadda maadaama toddobaadka soo socda aan gudagali doono maalmihii xurriyadda 60 sano guurada ka soo wareegatay xilligii la qaatay xurriyadda dalka Soomaaliya. runtii shirka waxaa lagu gorfeeyay sidii wadajir la isaga kaashan lahaa bilicda magaalada Muqdisho oo dardargelin xoogan lagu sameyn lahaa maadaama toddobaadkaasi ka gidisan tahay maalmaha kale caadiga ah ee magaalada Muqdisho lagu yaqaano iyadoo la rabo in la naleeyo magaalada sidoo kale calamadii ay ka muuqdaan maalmaha xurriyadda si ay u dareemaan shacabka qaybahooda kala gidisan. gudoomiyaha gobolka ayaa asigoo markaas si ambaqaadaya howshaasi baaxadda weyn laga sugayo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho maadaama ay tahay caasimadii dalka Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi iyagu ka shaqeynaya maalmahaasi xurriyadda oo ay hogaaminayso gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Marwa Basma Camir. guddigaasoo iyagu ay ka shaqeyn doona sidii diyaargarow aad u xoogan oo ka gidisan sanadihii hore maadaama 60 sano guuro ay tahay sanadkani. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.